soo dhawaada jaalayaal maanta waxaan idiin hayaa taxane aad u xiiso badan oo zombie ah oo lagu magacaabo All of Us RD daawasho wacan iskana taxadar muuqaalku wuxuu ku bilaabanayaa wiil lagu magacaabo Jinsu ayaa waxa garaacaysa koox arday rabshadoodayaal ah ilbiriqsigii xiga si lama filaana ayuu cagaha u istaagaa isagoo jirkiisa u qaloocan si aan dabiici ahayn wuxuuna bilaabaa weerar aad u xoogan oo ku qaado kuwii garaacayay intii ay rabshadu socotay ayuu dheelitirkiisa waayay wuxuuna ka dhacay meel aad u sareysa kadib aabihii Master Lee ayaa si degdeg ah u carray isbitaalka markii wuxuuna si ula kac uga fogaada inuu dhakhtarka arko isagoo si aamusnaan u gala qolka wiilkiisa ku jiray markuu arkay wiilkiisa oo dhaawac halis ah qaba ma muujin wax murugo ah oo laga filan karay aabe halkii uu ooyi lahaa si degan ayuu ugu sheegay in wax walba hagaagi doonaan laakiin Jinsu ayaa si cadal u qeyliyay isagoo u sheegay inuu xanuunkiisu dhammaan doonin ilaa la dilo kuwii garaacay daqiiqado kadib jirkiisa ayaa bilaabay inuu si xoog leh u gariiro sidii qof isku bedelaya wax kale argagax awgees Master Lee wuxuu qaatay buug isagoo dhowr jeer ku garaacay ilaa uu ka dhinto muddo kadib wuxuu jiiday shadad culus oo geeyay warshad cidlo ah si lama filaana gacan ayaa ka soo baxday gudaha shantada markaas ayuu Master Lee si naxdin lagu ogaaday in wiilkiisu gabi ahaanba isu bedelay zombie dhanka kale dugsiga gudihiisa ardaydu waxay ku jireen ololo nadaafadeed gudaha shaybaarka ardayda lagu magacaabo Hyun ayaa hurdada ka soo kacda halka saaxiibadeedii ay ka tageen markii ay soo toosto waxay maqashaa cod la yaab leh waxayna raacdaa codka ilaa ay ka hesho jiir qafis ku jira waxay la ciyaartaa muddo kooban laakiin si lama filaan ay jiirku qaniinaa isla waqtigaas Master Lee ayaa soo galay shaybaarka Hyunna waxay u sheegtaa in jiirku qaniinay waxayna isku daydaa inay baxdo balse Master Lee ayaa ka hor istaaga wuxuuna ku xiraa shaybaarka habeenkaas ardaydu waxay isu yimaadaan maqaaxi iyagoo ka sheekaysanaya Master Lee waxayna sheegaan inuu waashtay tan iyo markii wiilkiisa la waayay isla markaasna uu uriyay sidii mayd qudhmay subax xigtay waxaana la barayaa gabadh aad u caqli badan oo lagu magacaabo Onjo oo qurac la cunaysa aabaheed oo dabdamisa isla markaana gurmad caafimaad bixiye ah aabaheedna ma rumaysan inay guul weyn ka gaari doonto waxbarashada wuxuuna kula taliyaa inaysan isku daalin waxbarashada waxaa la soo garaacaa gambaleelka albaabka waxaana yimid saaxiibkeeda ugu dhow Jinsu waxaana si cad u muuqata inuu jecel yahay Onjo balse wuxuu dareenkiisa ku qariyaa kaftan iyo jees joogto ah dhanka kale wiilka dugsiga ugu cabsi badan ee lagu magacaabo Jun iyo kooxdiisa ayaa jooga goob dhisme oo ku yaala agaarka dugsiga halkaas ay kula jiraan laba arday oo kale oo lagu kala magacaabo Yun iyo Chul Jun wuxuu ku qeyliyay iyaga sababtoo ah waxay diideen inay markhaati ka noqdaan isagoo dhibaateeyay Jinsu ah wiilkii Master Lee si uu Yun u bahdilo wuxuu ku qasbaa inay dharka iska bixiso wuxuuna Chul ku amraa inuu muuqaal ka duubo si lama filaana arday lagu magacaabo Suhyog ayaa soo dhexgala si uu u difaaco Jun wuxuu ku jeestaa Suhyog isagoo xasuusinaya inuu hore uga tirsanaa kooxdooda balse halday iska dhigay qof wanaagsan Suhyogna wax jawaab ah kama bixiyo wuxuuna qabtaa Yun iyo Chul wuxuuna isku dayaa inuu halkaas kala tago laakiin Jun wuxuu ugu hanjabaa inuu internetka ku baahin doono muuqaalkeeda haddii aysan dib u soo laaban cabsi darteed Yun iyo Chul way ku noqdeen Yun waxay u sheegtaa Suhyog haddii aysan dib u noqon in muuqaalka la baahin doono oo ceeb weyn wajihi doonto dhanka fasalka maclimad lagu magacaabo Mrs. Bag ayaa fasalka weydiisay halka ay Hyun ku maqan tahay iyadoo sheegaysa inaan la arag tan iyo shalay mid kamid ah ardayda ayaa sheegay inuu markii ugu dambeysay ku arkay shaybaarka kadib Mrs. Bag waxay u tagtaa Master Lee iyadoo weydiinaysa inuu arkay Hyun balse uu been sheegaa inuusan arkin isla markiiba cod la yaab leh ayaa ka yeeray gudaha shaybaarka laakiin Master Lee wuxuu ku andacooday inuu yahay jiir kaliya markii dambe ayuu dib ugu noqday Hyun wuxuuna ku mudaa cirbad isagoo u sheegay inay tahay daawo yareynaysa faafitaanka caabuqa wuxuuna ku adkaystaa inuusan doonayn inuu dilo isagoo wax kastana ku duubaya laabtoonkiisa intii uu cashar kala socday Mrs. Bag ayaa wax dhigaysa si lama filaan Hyun ayaa albaabka ka soo gashay iyadoo dhulka ku dhacaysa iyadoo gariiraysa ayay u sheegtaa in macalinka biology-ga uu ku xiray shaybaarka cirbadna uu ku muday isla markaana uu isku dayay inuu dilo Mrs. Bag iyo saddex arday ku jirto Onjo ayaa Hyun u qaaday qolka kalkaalisada caafimaadka kalkaalisadu waxay ogaataa in heerkulka jirkeedu aad u hooseeyo si kadiisa Hyun waxay isku daydaa inay qaniinto Onjo balse halkii ka qaniin leed way xagataa kalkaalisadu waxay wacdaa ambulance waxaana si degdeg ah loogu qaadaa isbitaalka dhanka kale arday ayaa isku sheekaynaysa in Hyun ay u oreyso sidii mayd qudhmay sidii uu oriyay Master Lee ku noqday shaybaarka oo uu ogaado in Hyun la waayay gabi ahaanba uu xakameyn waaya naftiisa Mrs. Bag oo argagaxsan ayaa u kaxaysa xafiiska maamulaha iyadoo u sheegaysa in Hyun ambulance lagu qaaday isla markaana ay booliska wacday laakiin Master Lee wuxuu ku adkaystaa in Hyun ay ahayd in la karantiilo waxyar kadib waxaa yimaada booliskii waxayna xiraan Master Lee dhanka isbitaalka kalkaalisadii daweysay Hyun ayaa si lama filaan u dareentay isbedel la yaab leh waxay xasuusataa inay qaniintay Hyun intii erbada ay siinaysay daqiiqado yar gudahoodna iyaduna waxay isku bedeshaa zombie arday isbitaalka ku sugnaa ayaa arkay kalkaalisadii oo u dhaqmaysa si aan caadi ahayn wuxuu bilaabaa inuu muuqaal ka duubo si lama filaana ay u weerartaa saaxiibkiisa wayna qaniintaa markii uu dhulka ku dhacay isaguna wuxuu isku bedelaa zombie waxaana caabuqa si xawli ugu faafa isbitaalka dhanka dugsiga qalalaasa ayaa qarxa ardaydu waxay bilaabaa inay isqaniinaan qaarna waxay ka boodaan daaqadaha iyagoo argagaxsan isla waqtigaas Yun oo ah gabadhii la dhibaateeyay waxay saaran tahay saqafka sare iyagoo isku dayaysa inay isdisho Chul ayaa ka baraya inay joojiso balse si lama filaana ayay u arkaan ardayda hoose oo isweeraraya isqaniinaya kana boodaya daaqadaha gudaha maqaaxida Onjo waxay u sheegtay Jinsu inay jeceshahay Suhyog hadalkaas si aad u weyn ayuu ula yaabaa maadaama isagu si qorsada u jeclaa Onjo wax yar kadib ardayda cudurka qaaday ayaa gudaha maqaaxida u soo
qaata iyagoo eryanaya qof kasta ay arkaan isla waqtigaas maamulaha dugsiga ayaa shil la leh macallimiinta wuxuuna aad u xanaaqsan yahay in mid ka mid ah ardayda uu wacay booliska isagoo u sheegay in zombie uu joogo dugsiga wuxuuna ku canaantaa macallimiinta isagoo ku caydeynaya inaysan teleefanada ka qaadin markii boolisku uu soo waco maamuluhu uu been sheegay isagoo ku adkeysanaya inaysan wax zombiya uusan ka jirin dugsiga Mrs. Bagna aad ay u carootay mas'uuliyad daradiisa iyadoo u sheegaysa inay u baahan yihiin taageerada booliska sababtoo ah cidna maxkamayn karto ardayda iyadoo xanaaqsan ayay shirka ka baxdaa balse isla markiiba waxay indhaheeda ku aragtaa arday qaniinaya macallin cabsi jahwareer darteed ayay carartaa iyadoo fowdadu sii faafayso dhanka maqaaxida Johnson wuxuu si geesinimo la dagaalamaya zombiyada isagoo ilaalinaya Onjo halka June oo ah wiilka dadka dhibaateyn jiray wuxuu dadka u riixaya zombiyada si uu naftiisa u badbaadiyo isagoo u horeeyo qof kasta isku daya inuu caawimaad weydiisto Johnson wuxuu qabtaa Onjo waxayna ka baxsadaan daaqada maqaaxida laakiin markay banaanka yimaadeen waxay ogaadaan in gees kasta oo dugsiga ka mid ah ay buuxaan zombiyo waxayna dib ugu cararaan gudaha dugsiga balse zombiyadu meel walba ayay joogaan mid ka badan zombiyada ayaa isku daya inuu weeraro Johnson laakiin Onjo ayaa soo fargelisay oo badbaadisa labadoodu waxay ugu dambeyn gaareen fasalkooda halkaas oo koox yar oo arday ka mid ah ay cabsi ku dhuumanayaan isla markiiba laba arday oo kale ayaa daaqada ka soo fulo iyagoo gareeriya oo aan fahmin waxa socda dhanka kale Mr. Lee waxa uu wareysanaya saldhigga booliska isaga kaliya ayaa si dhab ah u fahamsan waxa dhacaya dambibaare lagu magacaabo G ayaa ku eedeynaya inuu dilay wiilkiisa Mr. Lee wuxuu qirtaa inuu sheegay wiilkiisa inuu maqan yahay si uu qariyo wixii run ahaantii dhacay dhanka isbitaalka saameyntii cirbadii hayuun way dhamaatay iyadoo hadda si buuxa iskugu badashay zombie waxayna weerartaa dhakhaatiirta iyo kalkaaliyaasha iyadoo cudurka sii faafinaysa dhanka dugsiga ardaydu waxay si waali u raadinayaan teleefon ay booliska ka wacaan waxay ugu dambeyn ka helaan mid ku qarsoonaa boorsada arday taas oo horey ugu dhiibin macallimada dibna Johnson ayaa waca booliska isagoo u sheegaya inay dugsiga ku jiraan zombie bilowgii boolisku ma rumaystaan balse waxyar kadib waxaa soo batay wicitaano badan oo dhammaantood ka imaanaya isla dugsiga waxyar kadib macallin lagu magacaabo Mr. Khan ayaa soo gala fasalka isagoo ardayda ku amray inay albaabka si adag u xiraan laakiin Onjo waxay aragtay calaamad qaniinyo oo gacantiisa ku taala Mr. Khan isagoo walwalsan ayuu beeniyay inay cid qaniintay ardayda way argagaxaan wayna ka fogaadaan iyagoo ku amraya inuu qolka ka baxo si lama filaan ayuu bilaabaa inuu muujiyo calaamadaha cudurka wuxuuna ku boodaa mid ka mid ah ardayda wuuna qaniinaa ardayga la qaniinin wuxuu isku bedelaa zombie qalaase cusub ayaa qarxa ardaydu waxay ku guuleystaan inay albaabka furaan oo u cararaan meel kale balse zombie ayaa jidka ka xira waxay ugu dambeyn u cararaan shaybaarka cilmiga si halkaas ugu dhuntaan intii lagu jiro orodka Onjo waxaa ka dhaca teleefankeedii markay gudaha galaan waxay si degdeg ah u xiraan dhammaan daaqadaha iyo albaabada Onjo waxay ku eedeysay gabadh lagu magacaabanaa inay teleefankeeda qarisay balse naa way beenisaa kadib Onjo waxay ogaataa in suujoog la waayay markii Johnson weydiisay halka uu joogo wuxuu u sheegay in gadaashooda uu joogay daqiiqad yar ka hor balse uusan garanayn halka uu hadda ku dambeeyo isla markiiba mid ka mid ah saaxiibada dhow ee Onjo ayaa bilaaba inay zombie isku bedesho Onjo iyadoo qaylinaysa ayay ku amartay dadka kale inay gabadha dibadda u saaraan balse way diidaa inay saaxiibteed ka tagto kadibna waxay weerartay Johnson ugu dambeyn wuxuu ku qasbanaaday inuu daaqada ka tuuro ana waxay isku dayday inay gacanteeda qabato iyadoo ooyaysa xasuusinaysa waqtiyada wacnaa ay soo wada qaateen laakiin Johnson ayaa gacmaheeda ka furaya isagoo ku qasbaya inay sii deyso dhanka kale June weli wuxuu ku dhuumanayaa maqaaxida dugsiga labadii arday oo horey u dhibaateeyeen waxay ku sugan yihiin saqafka sare koox kale oo ardayna waxay ku dhuumanayaan musqusha halka Suuyik uu kaligiis ku dhuumanaya fasalka farshaxanka kadib Johnson wuxuu soo jeediyay inay u guuraan qolka saxaafadda maadaama joogitaanka shaybaarku uu halis weyn ku yahay wuxuu qorsheenayaa inay daaqada wadagaan iyagoo adeegsanaya tuubada dibdamiska ardaydu waxay si adag u xiraan tuubada dibdamiska waxayna bilaabaan inay mid u wadagaan daaqada markii ay gaaraan dabaqa hoose halkaas waxay kula kulmaan Mrs. Bag qof walba si nabad ayuu uga soo degaa marka laga reebo Onjo iyo Johnson wuxuu Onjo ku yiraahdaa waa inay u noolaataa dadka ay jeceshahay dartood Onjo ayaa ugu jawaabtay inay lumisay qof walba oo ay jecleed oo ay ku jiraan saaxiibteed iyo Suujoog isla markaana aysan rabin sabab ay u sii noolaato Johnson wuxuu soo xasuusiyay aabaheed isagoo u sheegay inay dartiisa u noolaato ugu dambeyn Onjo way ogolaataa wayna soo degtaa markii Johnson isku diyaariyay inuu isna soo dego albaabka ayaa sina maflaan u furma zombida ayaana soo gala wuxuuna ku khasbanaadaa inuu daaqada ka boodo iyagoo daba socda isla waqtigaas Suuyag wuxuu isku dayaa inuu ka baxsado fasalka farshaxanka isagoo daaqada ka soo baxaya markii uu banaanka eegay wuxuu arkay Johnson oo halis ku jira wuxuuna u cararay inuu badbaadiyo wuxuuna qabsaday Johnson kadibna laad xooggan ayuu kaga fujiyay zombigii ugu dambeyn labadoodu waxay si nabad ah u soo gaareen qolka idaacadda waxayna dib u midoobeen ardaydii kale laakiin gabadha fanaanada cas ee lagu macaawinaanaha ayaa noqotay mid aad u xanaaqsan waxay ku amartay qof walba inuu si degdeg u xiraan daaqadaha Khan oo ah saaxiibka ugu dhow Johnson ayaa aad u xanaaqay soo u adkeysan waayay wuxuu ku eedeeyay inay nafteeda kaliya ka fikirto isla markaasna aysan weligeed dan ka lahayn badbaadada dadka kale kadib Naana waxay ku jeestaa Khan iyadoo ugu yeertay inuu ka soo jeedo dabaqada hoose waxaana ogaanaynaa in Khan uu waxbarashada ku sii wato kaalmada dawladda halka Naana oo ka dhalatay qoys maalqabeen ay arrintaasi ku yeesisay markii murugu sii xogeystay Mrs. Bag ayaa soo dhaxgashay waxay ku wargelisay in waqtigan uu
uusan hayn waqti la dagaalamo. waxay sheegtay in waxa ugu muhiimsan uu yahay inay ogaadaan waxa banaanka ka socda. ardaydii waxay isla markiiba shideen kombiyuutar yaalay qolka idaacadda iyagoo isku dayaya inay la xiriiraan dibadda. isla waqtigaas muraayadii daaqadda ayaa si lama filaana u jabtay. zombi ayaa dusha sare gudaha uga soo dhacay. wiilashii waxay isku dayeen inay dib u celiyaan iyagoo adeegsanaya ul xaaqin, laakiin awoodda zombiga ayaa aad uga xoog badneed sida ay filayeen. markay xaaladdu xumaatay haan wuxuu qaatay sanduuqii kombiyuutarka wuxuuna si xoog leh ugu dhuftay zombiga. markii qof walba u maleeyay in khatartu dhammaatay, naana ayaa aragtay in sanka haan uu dhiig ka socdo. waxay kaloo aragtay nabar gacanta kaga yaala. isla markiiba waxay ku dooday inuu cudurka qaaday, waxayna ku boorisay ardaydii kale inay banaanka u saaraan. haan ayaa si quusa u sharxay in dhiigga sankiisa ku socda uu ka yimid jug uu si kama ugu dhuftay suuyoog intii qalalaasuu socday. nabarka gacantiisana uu ka dhashay birtii sanduuqa kombiyuutarka ee zombigu ku dhufanayay. markii wiilashii si fiican u baareen waxay xaqiijiyeen inaan la qaninin, waxayna ku amreen naanaa inay raaligelin bixiso. laakiin naanaha way diiday, waxayna ku adkaystay in zombigu ka taabtay nabarka, sidaas daraaddeedna ay suurtagal tahay inuu cudurka qaaday. ugu dambeyn Mrs. Bag waxay soo jeedaysaa in haan lagu karantiilo qolka duubista muddo 10 daqiiqo ah. haddii uusan isu bedelin zombi, naana waa inay raaligelin bixisaa, laakiin haan wuu diiday wuxuuna si adag u codsaday in la karantiilo muddo 1 saaca. nusu saac ayaa la dhaafay, weli wax calaamada oo isbedel ahna laguma arkin. markaas Mrs. Bag waxay xasuusisay naana inay fuliso ballanteedii oo ay raaligelin bixiso, iyadoo moodaysa in qof walba uu kasoo horjeedo. naana si aan raaligelin ka ahayn ayay u gashay qolka duubista. waxay maro ku tirsatay nabarkii haan maadaama qolkaasi uu ahaa mid codkiisa si fiican u celiya. ardaydii banaanka joogtay waxay u haysteen inay is afkarteen, laakiin xaqiiqdu sidaas ma ahayn. naana waxay markale si ulakaxa u kicisay haan. waxay ku eedeysay in qof aan qiimo lahayn si isaga oo kale ay sabab u noqotay inay iyadu gees la gasho. markii haan isagoo xanaaqsan uu qolka kasoo baxay, qof walba wuxuu ogaaday inaysan weligeed raaligelin bixin. ardaydii dhan waxay cambaariyeen dhaqankeeda, laakiin naana wax dan ah kama galin. ilbiriqsigii xigisanka haan ayaa dhiig ka yimid, indhihiisuna waxay bilaabeen inay casaan isu bedelaan. isagoo doonaya inuusan waxyeelo u geysan saaxiibadiisa ayuu u dhaqaaqay dhanka albaabka. markii uu damcay inuu furo, wuxuu bilaabay inuu dhalanteed arko. qof kasta hortiisa joogay wuxuu la muuqday zombi. muddo kadib gabi ahaanba wuu waayay xakamaynta naftiisa. iyadoo ilmadu indhihiisa ka qabanaysa, Johnson ayaa afuufay foori si uu dareenka ugu soo jeediyo dhanka daaqada. markii arrintaas dhacday, naana waxay rumaysnayd in qof walba ugu mahadcelin doono, laakiin si lama filaana gabar lagu magacaabo naamnaha ayaa soo talaabsaday, waxayna dharbaaxo xoogan wejiga ugu dhufatay naana. waxaa soo baxay in naamnaha indhaheeda ku aragtay naana oo si ulkaxa dhiigga zombiga u marsatay marada ay ku tirtiraysay nabarka haan. markii runta la ogaaday, naana way iska daysay iska dhigistay, laakiin ma fahmin sababta qof walba oo haan uga qiimo badan yahay iyada. waxayna si qaba u tiri anugu maanan dilin, weli wuu nool yahay, kaliya bini aadan buusan ahayn. markii uu hadalkaas u maqlay, Johnson wuu xanaaqay, wuxuuna si xoog leh dhulka ugu tuuray naana. markii ay garatay in qof walba uu nacay naana, iyadoo murugaysan ay qolka ka suuyaga ayaa isku dayay inuu dabagalo, laakiin Mrs. Bag ayaa joojisay. waxay si adag ugu sheegtay ardayda in xaalad kasta oo timaada aysan weligeed naf bil aadan si ulkaxa aysan u goyn. markii hadalkaas dhamaystay, Mrs. Bag waxay daba orday naana si ay uga badbaado zombiyada daba socday. dhanka kale, rabashada wadihii wuxuu weli ku xajirnaa jikada cuntada. si uu naftiisa u badbaadiyo, wuxuu weli agtiisa joogay si ulkaxa ugu riixay zombiyada. shaqaale naxariis badan oo ka shaqaynaysa maqaaxida ayaa isku dayday inay badbaadiso, laakiin June iyadana si arxandara ayuu zombiyada ugu tuuray. dhanka kale, magaalada inteeda kale waxay gashay foodo. dowladdu waxay wadooyinka keentay ciidamo hubeysan si ay u joojiso faafitaanka fayraska, laakiin waxay aad u dheelaysadeen awoodda iyo halista zombiyada. dhanka kale, gabar dhigata dugsiga sare ayaa xanuunsatay, sidaas daraaddeedna waxay fasax uga baxday dugsiga. waxay gashay musqul dadweyne halkaas oo keligeed ku umushay ilmo. markii hore waxay damacday in ilmaha halkaas ay kaga tagto oo ay ka baxsato. intii ay baxsanaysay, zombi ayaa qaniinay. markii ay garatay inay dhowaan isu bedelto zombi, waxay ilmaheeda dhigtay meel ammaan oo u dhow. kadibna waxay isku xirtay albaabka iyadoo adeegsanaysa xarig. waxay sidaas u samaysay si aysan zombiyadu ugu soo dhawaan ilmaheeda, iyadoo haddii ay isku bedesho zombi aysan waxyeelo u gaarsiin. qofka kale wax kasta u wariyay caruurtiisa waxay ahayd Johnson hooyadii. markii warar ka maqashay in fayras halis ah magaalo ku faafay, isla markaan uu ka bilowday dugsiga wiilkeeda, waxay halis u gashay nafteeda oo gudaha u gashay dugsiga. waxayna si keesa la kulantay haan oo garoonka dhex wareegayay, iyadoo aan ogeyn inuu cudurka qaaday ayay weydiisay halka wiilkeeda uu joogo. nasiib daras isla markiiba waxaa hareeriyay zombiyadii. dhanka kale, hoolka weyn ee dugsiga, xildhibaanada ayaa ku kalsoonay inay diyaarad qumaati u kacda ay u imaan doonto maadaama ay tahay qof xil haya. laakiin aabaha Onjo ah hogaamiyaha samata bixinta wuxuu sheegay inuusan cidna si gaar ah u xusin. wuxuu cadeeyay in xeerarka samata bixinta ay dhigayaan in dadka nugul iyo kuwa dhaawacan mudnaanta la siiyo. xaqiiqdiisu waxayd inuu isagaba uu doonayay inuu si ugu dhaqsiya badan iskaga baxo halkaas si uu raaday gabadhiisa oo weli ku xanimnay dugsiga. dhanka kale, gudaha dugsiga waxaa haray kaliya 2 meelood oo ammaan ah. mid waxay ahayd qolka idaacadda, halka kalena uu ahaa saqafka sare ee dugsiga. labadii arday muddo dheer dhibaatoonayay waxay hadda ku faraxsan yihiin inay arkaan dugsiga oo burburaya. qolka idaacadda gudaheeda, ardaydu waxay bilaabeen inay ka loolaan Mrs. Bag iyo Naana maadaama aysan weli soo noqon. si lama filaana, Suuyaga wuxuu weydiiyey su'aal qof walba ka yaabisay, balse ahayd mid dhab ahaan aad u muhiim ah xaaladooda. wuxuuna weydiiyey inuu jiro qof u baahan musqush. markay su'aashaas maqashay, Onjo waxay xasuustay aqoon aabaheed horay u baray. waxay isticmaashay agabka yaraa ee qolka yaalay si ay u samaysay musqulku meel gaar ah. hadda waxa kaliya u haray waa inay samraan iyo sugaan gargaar. dhanka kale, June wuxuu ugu dambeyn helay fursad uu kaga baxso qolka cuntada. wuxuu ku dhuuntay xafiiska maamulaha, laakiin gudaha ayuu kula kulmay zombiye kale. nasiib wanaag wuxuu waday mindi, wuxuuna si dirqi uga badbaadiyay zombiyada. isla waqtigaas, nin si toos ah muuqaalo u baahan jiray internetka ayaa magaalada dhexdeeda ka baxsanayay zombiyada. si uu caan u noqdo oo daawado badan u helo, ayuu kaligiis galay goobta cudurka ka dilaacay
dhacay isagoo si toos u baahanaya. Wuxuu isku dayay inuu helo meel uu ku dhuunto, laakiin koox zombiyaha oo carruur ayaa si joogta u daba socday iyadoo magaalada dhan burbur ku socoto. Baarasoon ayaa ugu dambeyn garwaaqsaday baaxadda musiibada uu Mr. Lee sababay, laakiin Mr. Lee wuxuu ku adkaystay inuusan wax khalad samayn. Wuxuu sheegay in dhibaatada dhabta ay tahay adduun uu kaliya ka taliyay sharciga kan xooga badan. Waxaa soo baxay in maamulaha dugsiga uu qariyay xaqiiqda dhibaataynta ardayda si uu ilaaliyo sumcadda dugsigiisa. Sababtaas darteed Mr. Lee wuxuu ku khasbanaaday inuu wiilkiisa u wareejiyo dugsi kale, laakiin xitaa markaas ardayda dhibaataynaysa ma aysan joojin. Markii uu arkay si lacay murugada wiilkiisa ku noolaa, caro aan xakameyn karin ayaa ku dhalatay. Ugu dambeyn wuxuu go'aansaday inuu wiilkiisa isu bedelo zombie. kadib Baarasoon ayaa weydiiyay haddii daawo loo heli karo fayraska, laakiin Mr. Lee wuxuu si adag ugu jawaabay fayraska lama xakameyn karo. Isla waqtigaas zombiyada ayaa bilaabay inay gudaha u galaan saldhigga booliska. Markii uu arkay xaaladda quusta ee bini'aadanimadii ugu dambeysay ee Mr. Lee ayaa soo baxday. Wuxuu ku amray Baarasoon inuu aado shaybaarka sayniska ee dugsiga oo uu ka soo qaado laabtoobkiisa. Wuxuuna u sheegay in laabtoobkiisa uu ku jiro tilmaamaha kaliya lagu xallin karo dhibaatadan. kadibna Mr. Lee wuxuu dib ugu laabtay zombiyadii si ugu celiyo isagoo waqti siinaya Baarasoon si uu u baxsado.